Waxaan ahay wiil 15 jir ah kuna nool gobolka Florida ee waddanka Mareykanka. Waxaan la noolaa hooyaday iyo eedayga waxaana ku nooleen dhismo 2 dabaq ka kooban. Dhismaha waxaa ka agdhow xabaalo ama qabuuro. Sheekada sidan ayay ku bilaabatay. Waxaan ka baxay iskuulka 3 galabnimo. Hooyaday shaqadu waxay ka soo ruuxdaa 5 galabnimo. Ka hor inta aysan ka soo bixin shaqada sida caadada ahayd, waxay hore igu soo qaadaa qado. Abbaara 5 iyo barkii galabnimo ayay guriga soo aadaa. Gurigan waxaan soo degnay 3 bilood ka hor maalin Jimco ah oo jawigu aad u deganaa. Waxaan ka imid iskuulka abbaaro 3 iyo 15 daqiiqo galabnimo. Keligii ayaan ku ahaa guriga maadaama hooyaday ay shaqada ku maqneed. Maalintaasi hooyaday waxay go'aansatay inay shaqada ku soo daahdo, waxayna ii sheegtay inay iman doonto marka ay saacadu ku beegan tahay 8 fiidnimo. Anigu markaasi waxaan isku dayay in aan xoogaa isku mashquuliyo ciyaar gacmeed ama video game. Qiyaastii saacadu marka ay ku beegneed 6 iyo qadar 15 daqiiqo ayuu eegayga bilaabay inuu digniin bixiyo. Kadib eygii ayaan u raacay qaybta hoose. Markii aan hoos u degay ayaan xagga albaabka ka maqlay qof aad u neeftuuraya. Waxaadba u moodaa qof galay tartanka orodka oo ku nasanaya albaabkayga hortiis. Waxaan bilaabay in aan duleelka albaabka ka eego. Waaba nin dheer oo xagga sare ka qaawan. Waxa uu sitay muraayadaha indhaha. Dhirirkiisu waxaan ku qiyaasay 6 fiit. Da'diisu waxay u dhaxaysay 50. Wuxuu lahaa gadhka qaabka looxa loo yaqaano Albert Jack style. Jikadaydu waxay ku toosan tahay albaabkayga. Waxaana gacanta ku soo qabsaday mindi aad u weyn. Waxaan u sheegay inuu iska baxo. Wuxuu u muuqday mid aan wax cabsi ah ka muuqan. Si fudud ayuuna isaga dhaqaaqay. Waxaan jeclaan lahaa in ay sheekadani halkaasi ku dhammaato, balse maysan noqon. Waa 7 iyo badh fiidnimo. Cirku waa uu sii madoobaanayay. Ma jiraan calaamado muujinaya in uu ninkii weli meesha uu ka dhow yahay. Sidaas darteed waxaan go'aansaday in aan bannaanka aado aniga iyo eegayga. Waxaana ku soconay waddada caadiga ah. Waddadaasi waxay toos u agmartaa qabuuraha. Waxaan qabay dareen ah in aan keligay ahayn uu qof i daawanayo. Eegayga ayaa bilaabay in uu dhagaha taago. Gebi ahaanba socodkii ayuu joojiyay. Wuxuu bilaabay in uu eego dhanka qabuuraha. Kadib ayuu qaylo aan kala joogsi lahayn bilaabay. Waxaan eegay halka uu fiirinayo eeyga. Aad baan u naxay. Waxaan arkay nin gar weyn oo u eg kii aan horay u arkay. Inkastoo uusan isagii ahayn, haddana aad buu iga fogaa. Waan eegay. Waxa uu sitay majarafo ama badiil. Waxaana ka agdhowaa bac guduudan oo uu ka soo jeedo wax u eg cag bani aadam. Waxay u muuqatay inuu halkaasi qabri ka qodayay. Wuu isoo eegay isaga oo ii dhoola cadaynaya. Kadib hooshiisii ayuu sii watay. Halkii ayaan eygii kala soo cararay. Kadib markii aan guriga imid, waxaan u sheegay hooyaday waxa aan soo arkay. Hooyaday waxay u yeertay booliiska. Waxayna aadeen qabuuraha, balse waxba kama aysan soo helin. Kadib waxaan ka guurnay xaafadii aan deganayn. 6 bil ayaa ka soo wareegatay. Ilaa iyo hadda wax baaritaanka booliiska ka soo baxay ma jiro, balse waxaan rajaynayaa in uu ninkaasi dhintay ama xilligaani meel kale lagu xiray.